soo dhawaada akhyaarta. Maanta waxaan rabaa inaan tusiyo cashar yar oo gaaban. How to install Facebook software in Windows 7, 8, 10. Sidee loogu dejin karaa Facebook software in Windowga see u dejin kartaa aan computerkaaga oo version 7, 8, 10. waa intaas ujeedada aan rabo inaan idin tusiyo. Marka meeshaan aan rabaa inaan inta keeno meeshaas sida kuwan waa software halkan ku degan waa install lagu sameeyay Google Chrome, Opera, waxaan dhan waa barnaamij. Marka dadka inta badan waxay sameeyaan si Facebook application ay ugu soo dejiyaan laptopkooda mise computerkooda caadiga waxay adeegsadaan wax la yiraahdo BlueStacks. Anagu aan adeegsanay BlueStacks aan wado yar aan u mari karnaa oo software ahaan aan ka dhigin karnaa. Okay, ana bilaawno. Right click aad leedahay. Right click markaad tagtid new aad leedahay. Waxaad ku dhufanaysaa shortcut markuu ku soo saaro meesha aad u jeedaan waxaan ku qoraynaa www.facebook.com. next aan leenahay new internet shortcut kaas aan iska tirno. waxaan ku qoraynaa magaca software aan rabno Facebook. Okay, sida arki doontiin halkan noo imaado waa kana, halkaas noo imaado, halkan noo dhig. Kana waxaan rabnaa inaan u bedelno Facebook. Okay, Google Chrome kuna fur. waa kana new aan dhahno, halka Google aan tagno. Google markaan tagno halkan waxaan ku qoraynaa icon Facebook. markuu intaas ku keeno saa ujeedid hoos aan usoo degno waxaan raadinaynaa page. Okay, icon Facebook. Okay, kanaan ku dhufano. halkaasaan imaanaynaa. marka inta imaano page-kan u jeediin inta waa all price free iyo waxaan u jeedin waa beec. marka waxaan ku dhufanaynaa waxaan naga qosaya free markaan ku dhufano ayaan waxaan raasinaynaa calaamadda Facebook. Okay, tanaan soo qaadano aan ku dhufano. marka halkaan aan imaano waxaan iga xirxaysiinta waxaan leenahay other format. inta waa pink, yani hadhoodii meesha aan rabno inaan calaamaddaas aan ku bedelo ma noo qaadanayo, SVG gana ma noo qaadanayo. other format aan leenahay. other format markaan nalno waa AL iyo ICO oo it mean ay lamid tahay iconkaas. marka muxuu yahay download this icon in ICO for formatkiis. marka waxaan ka rabnaa Windows ahaan aan u isticmaalnaa qoraalka. marka meeshaan mouse aan saaro qoraalka saaran fiiri format for use in Windows. kana hadaba maxaa la yiraahdaa qosay kuna download aynu dhahno. halkaas uu imaaday already wuu degay. Okay, minimize naga dheh. waxaan u imaanaynaa Facebookii hadda aan sameysanay. right click aan leenahay properties markaan ilaa hor nooga imaaday. halkan waa journal web document. meesha haddaan rabno waa web document. waxaan leenahay change icon. iconkii aan bedelaynaa browse aan ku dhufanaynaa. meeshii downloadku noo tagay ayuu noo imaanaa. waa kana icon finder square. Okay, no door open the
calaamadaas noo qaatay okay aad leedahay apply aad leedahay okay haddaba maxaad aragteen waxaad ujeedaan Facebook waa Facebook ku dhufo markaa ku dhufatid automatic intuu ku geenayaa Facebook ku geenaya soo ma jeed okay waa mahadsantihiin waa userkeygii waaye waa qaabka ugu sahlan oo softwareka loogu dejin karo maxaa la yidhahdaa windowga Windows 7 Windows 8 Windows 10 يعني uma baahnid inaad maxaa la yidhahdaa BlueStacks aad kala soo degtid qaabkan yar oo fududna waa lagu soo degay waa mahadsantihiin